Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta qiimaha badan ku soo dhowaada janalka Curad Caashaq iyo saaxiibkiin Cabdulaahi Maxamed Cabdi CMC. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka. Caawana waxaan uga hadli doonaa cunista basbaaska qajiga iyo caafimaadka. Basbaasku wuxuu ka mid yahay dhirta lagu darsado cuntada. Dhirta waxaa ka mid ah kuwa udgoon iyo geedo yaryar sida xawaashka, toonta iyo kuwa kale. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin dhadhan fiican, waxaana guri walba laga helaa jikada. Basbaasku waa geed kulul, qudaarta ayuuna ka mid yahay, wuxuuna caan ku yahay in lagu socodsiiyo cuntada. Keligii lama cuno, cuntooyinka qaar ayaana lagu darsadaa. Waxaa jira dad badan oo aan basbaaska ku darsan raashinka oo uu markuu afka u galo raashinka dib u soo tufa, markiibana biyo caba. Ama haddaan si kale u iraahdo, marka carruurta la yahay oo afka basbaaska ku galo waxaa lagu yiraahdaa biyo cab, hase yeeshee taasi sax maaha. Khuburo badan ayaa baaritaan ku sameeyay basbaaska oo waxay leeyihiin haddii uu afka ku galo basbaas ama aad liqdo kulayl daran aad dareento, waxaad ka bataa caano. Waa damiyaha koowaad ee kulaylka basbaaska, waayo caanaha carabka ayay labeyn ku sameeyaan. Inkastoo oo isticmaalka lagu kala duwan yahay nooca laga dhigi karo basbaaska ayaa haddana waxaanse ka soo qaadanaynaa 3 qayb oo lagu isticmaalo. Basbaaska qoyan oo sida geedka looga soo jaray, ama waxay Soomaalidu u taqaano qaruun ama qaji. Midkani sidiisii ayaa loo tumaa oo liin iyo cusbo, waana ka caan Soomaalida dhexdeeda, ama sidiisa ayay isagoon waxba lagu darin la calaliyaa. Midka labaad waa mid la qalajiyo oo budo laga dhigo. Soomaalida ma samayso habka, laakiin isagoo budo ah ayaa dibadda looga keenaa, raashinkana lagu darsadaa. Midka saddexaad waa mid dareere ah oo laga dhigo sidii biyaha oo kale. Kani kuma badna xaafadaha iyo maqaayadaha yaryar, laakiin hoteelada waaweyn qaarkood ayaa keensada miiska cuntada. Haddaba aanu ka hadalno faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay. Faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay waxay tahay lambarka koowaad, weight loss, ama waxa loo yaqaano dhimista miisaanka jirka. Basbaasku wuxuu keeni karaa in jirka uu gubo calories bonus muddo 20 daqiiqo ah. Midda labaad, heart health, ama caafimaadka wadnaha. Baaris ayaa sheegtay in raashinka basbaaska leh oo la cunaa ay yareyn karto in uu wadnuhu ku istaago iyo maskaxda oo dhiig ku furma. Sidoo kale wuxuu basbaasku yareeyaa inuu kugu kaco waxa loo yaqaano bad cholesterol, ama dhiigga oo subaga ku bato. Qodobka saddexaad, lower blood pressure, ama low blood pressure, cadaadiska dhiigga hoose. Waxaa laga helaa vitamin A iyo vitamin C si ay u xoojiyaan muruqyada gidaarka wadnaha, iyo kulaylka basbaaska oo kordhiya qulqulka dhiigga ee jirka oo dhan. Qodobka afraad, caburka. Basbaasku wuxuu hawo-mareenka ka nadiifiyaa duufka iyo xaakada. Sidaas daraaddeed, dadka xaakada ay ka soo go'i la'dahay marka ay qufacayaan waxaa lagula taliyaa in ay cuntada basbaaska ku darsadaan. Markana aan ka hadalno dhibaatooyinka uu leeyahay basbaaska. Waxaan iyadana ka soo qaadan doonaa wixii laga qoray. Sanadkii 2011, bukaanno badan oo laga baaray xanuuno ay ka cabanayeen oo caloosha ah dalka Mareykanka, gaar ahaan qolka xaaladaha degdegga ama emergency-ga, waxaa la diiwaan geliyay 28,531 jeer bukaanno, waxayna sahmintaasi carabaabtay in dadkaasi iyo kuwa kaleba qabaan xanuunka xasaasiyadda oo caloosha ku dhaca.
sababteeduna ay tahay basbaaska ay aad u cuni jireen. Sidoo kale wadna garaac badan, neeftuur badan, neerfayaasha oo kacsan, dareen wareersan. Waayo ayaa lagu sheegay baaritaanka cadaadiska dhiigga oo aan awoodin in dhiig yar uu kor u soo gudbo. Dadka cuna basbaaska, waxyaabaha ka muuqda ee dhibaatada ah waxaa ka mid ah: 1. Bishimaha ama dibnaha oo casaada ama guduuta. Laab-dilaac caloosha ah. Bogga caanka ah ee Yahoo qaybtiisa jawaabaha ayaa soo bandhigay dhowr qodob oo ay ku sheegeen in basbaasku dhibaato leeyahay. Waxaana bogga lagu sheegay haddii aad leedahay meel ka mid ah jirkaaga oo boog ah, aad ayuu ugu daran yahay. Basbaaska calool xanuun, mararka qaar keena shuban, cuncun, gaajo badan, madax xanuun, jirka iyo maskaxda ah, iyo hawada xagga dambe oo aan hagaagsanayn, yacni ur badan. Waa hagaag, intaas waxaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeennii caafimaadka oon maanta uga hadlaynay basbaaska, khasaaro iyo faa'iido caafimaad intaba waxa uu leeyahay. Waa saaxiibkiin Cabdulaahi Maxamed Cabdi CMC iyo janalka Curud Caashaq oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.